waxaa sheekada Manafai lagu soo bandhigay dalka Yurub daabacadeedii afraad sidoo kalena waxaa la rajaynayaa maalmaha soo socda in lagu soo bandhigo magaalada Muqdisho baladaba aniga iyo daawadayaashii dhageystayaasha si aan wax badan uga ogaano qiimaha ay leedahay sheekadan farshaxnimadeeda faneed ayaan rabnaa bal su'aalo guud mar inaan ka weydiiyo su'aasha ugu horeysay aan ka weydiinayo sheekada Manafai oo uu buuggeeda yahay ka idin muuqda waa maxay qisada Manafai qeexid iyo warbixin kooban naga sii goorma ayaa la qoray yaa qoray muxuu ka dhigan yahay magaca Manafai بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waan ku salaamayaa Ustaad Cabdullaahi Gacanka teamka kale ee la shaqeynaya barnaamijka duubayana waan salaamayaa dhageystayaasha iyo daawadayaashana waan wada salaamayaa markii xiga waa saad u tilmaantay qisadan caanka baxday 40 jirsatay ee Manafai wadamo Yurub ahna waa lagu soo bandhigay وانا laga yaabaa inta barnaamijkan duubistiisa siideentiisa lagu dhex jiro in Muqdishona lagu soo bandhigo sida la rajaynayo qofka daawanaya ama dhageysanaya iyadoo la soo bandhigayba inuu barnaamijku baxaaba dhici karta waa saad u tilmaantay qisadan Manafai waa buuga aad arkaysaan Manafai waxa la qoray horta waa sheeko la qoray 1979 way 40 jirsatay marka waxa waaye waxay gaartay meeshii qofku xoggiis ku buuxsan jiray markii hore waxay ku soo bixi jirtay markii ugu horeysay waxay ku soo baxday wargeyskii xidigta October iyadoo maalinle ay ku soo bixi jirtay kadib waxay noqotay in la daabaco iyadoo buuga markii ugu horeysay Muqdisho waxa lagu daabacay daabacadii 1981 dabadeed waxa lagu daabacay muxuu ahaay Sweden ama Stockholm 1993 mar saddexaad waxa lagu daabacay wadanka Ingiriiska ama UK 1997 midkan marka waa daabacadii afraad waxaana lagu daabacay Ingiriiska isla Ingiriiska lagu daabacay Ingiriiska wuxuu nasiib u yeeshay in laba jeer lagu daabaco qisadan waxa qoray Dr. Maxamed Daahir Afrax waa qoraal la wada yaqaan oo isagoo iminka inaan ka sheekeyno iyo inaan wax iska barno uma baahna muddo dheer buu ka soo shaqeynayay dhanka fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhanka suugaanta iyo af Soomaaliga guud ahaantiis gaar ahaan dhanka suugaanta cilmi ahaan shahaadada PhD-ga ayuu wuxuu ku haystaaba suugaanta Soomaalida sheekadani waa sheeko faneed markii sheekooyinka loo qaybiyo sheeko faneed iyo sheeko hideed waa kuwii soo jiray sidii dhagdheer iyo diin iyo dawaco iyo waxyaabaha la midka iyadoo waa sheeko faneed uu qof curiyay oo la yaqaan qofkii curiyay waa sheekooyinka casriga ah ee ku soo biiray suugaanta Soomaalida xilligan casriga waxay soo galaysaa nooca sheekada dheer ee loo yaqaan qisada oo sheeko faneed markii loo qaybiyo laba qaybood oo waaweyn sheeko gaaban iyo sheeko dheer si magaca sheekadu uu laba jeer u soo noqonin ayaa Soomaaliga bixinta loo isticmaalay wuxuu yahay qiso marka sheeko dheer u taagtay ama novel ku xaliyo waa novel sida Englishka lagu yiraahdo ama Carabigana riwaayad lagu yiraahdo kaleeto marka waa qisadaas weeye marka waa qisadaasi ama novelkaasi Manafai waxa jilaya magaca meesha uu ka keenay waa Manafai buuga loogu magac daray waa gabadh dugsiga sare dhigata da'adeedu ayna 20 gaadhin qoyskoodii reerkoodii la joogta la jecel yahay imika gaashaan qaaday oo gashaanti noqotay la doonay loo hanweyn yahay laga wada dhursuga gabadh Banaadiriya xamar weyn ay ku dhalatay ku kortay ay joogtaa inta ay sheekada jilayso magacan Manafai wuxuu la mid yahay magacyada iyagoo la isku lamaanay gabdhaha loo bixiyo waxaad arkaysaa misalan iyadoo la leeyahay Caashakiin Aamina Sahra Xawluul Maryama Muxubbo marka waxa ka muuqata jacayl iyo koolkoolin xadaafa loo qabo marka sheekadana saasi ku jirta yaani waalidkeed way jecel yihiin deriskeed way jecel yihiin saaxiibadeed way jecel yihiin bulshada ay ku dhaxnoosho dhanna way jecel yihiin dhinac kasta marka laga eego waa marka gabar loo hanweyn sheekadan dhacdooyinkeedu waxay ka dhacayaan magaalada Muqdisho 1979 markuu qofku akhriyo marka Muqdisho 79 siday ahayd sidee loogu noolaa ayaa dariishada sidii loogu noolaa iyo habkii loo fikiri jiray qaybaha kala duwan bulshada waxa soo dhan ayuu taariikh ahaan in looga qoro waa ku filan tahay
way culumta qaarkood sida taariikhda iyo anthropology-ga iyo sociology-ga iyo culumta la yiraahdo waxay u noqon kartaa tixraac fiican bay u noqon kartaa goobta ugu weyn ee ka dhacaysa waa magaalada Muqdisho yani Muqdisho weeyaan ba waxa ay ka dhacaysa sheekadu fagaaraha ay ka dhacayso gaar ahaan labada degme Xamarweyne iyo Boondheere labadaas ugu weyn iyo hodanna meelaha soo yargalaya iyo xagaas laakiin labada meelood ugu weyn waa Boondheere iyo waxa magaaladii Xamartii hore waa Xamarweyne waa Xamartii hore ayay ka dhaxdhacaysa shantii xaafadooda waaweynaa ee Xamar ka koobnayd berigii hore ilaan Shibis iyo waxay ahaayeen Shangaani Xamarweyne iyo Boondheere Xamar Jajab shantaas degmo ayay magaalada dhan baahayd sheekada qofka imika akhriya waxay dib ugu celinaysaa 40 sano ka hor magaalada Muqdisho siday ahayd noloshii bay ku muujinaysaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dadku waxay raaci jireen taxi qof loo raaco marka qof walba sida basaska imika loo raaco kale yaa taxi afar shan qof wada qaadi jira dhaqan hadda jira ma qofka taxiga karaysta hal qof baa karaysta laakiin marka dad badan baa wada raaci jira marka habkii taxiga qofka akhrinaya laga yaabo inuu la yaabo waxaad ku arkaysaa aqaladii xilliga magaalada caanka ku ahayd mitir kuubo iyo baraako iyo oo hadda markii la eego laga yaabo in naadir dhif dhowr xabo kaliya lagu arko waxaa ka mid ah muxuu ahay waxyaabihii marka agabkii jiray tusaale waxaad arkaysaa iyadoo leeyahay wuxuu xidhan yahay dacas goome baabuur ka samaysan marka dacas goome baabuur ka samaysan hadda waxa la yaabaa inaysan mana arag mana maqal waxaa ku jirta noloshii xilligaa iyo agabkii la adeegsanayay bay noo muujinaysaa waxaa ka mid ah mararka qaarkood iyadoo leeyahay saxan ereyga saxan buu adeegsanay sax imika saxan ma adeegsano markii loo saxan cusub bay u saartaa waa jiira digsi warka jiira digsi waxa la adeegsadaa memory waxa ka horeeyay cajalada ka horeeyay saxanku ka sii horeeyo 70aadkii 60aadkii ayaa la isticmaali jiray marka qofku caadi imika uma fahmayoba marka la joogo ereyadii beriga la isticmaalayay ayaa ka muuqanaya sida ereyga saxan oo kaleeto waxaad arkaysaa isagoo mararka qaarkood ereyo aan imika la isticmaalin dhaqankii markaa jira mesela hoteelo iyo caweys bay lahaayeen waxaad ku arkaysaa ereyadii meelaha lagu adeegsan jiray iyadoo la adeegsanayo bermeti boqorada qofka hadda jooga soo dhawo boqorada qofku hadda ma garan karo ma maqal maba yaqaan la yaqaan maba ahaba waxay qisadan ina tusaysaa bulsho oo ka dhex socdo isbedel waxa dhaqankii soo jireenkaana uu ku dhex jiraa dhaqan cusub oo nolosha casrigu la timidna ku dhex jiraa labadii dhaqan oo isdhex jeedaya labadii dhaqan oo isdhex jeedaya dhinacna ka wada nool dhinacna dagaal ka dhaxeeyo loolan iyo uu ka dhaxeeyo ayaa ku jira waxayna tusaysaa dhaqamadii iyo fikradihii bulshada markaa ka dhex jiray bulshadii markaa Muqdisho ku nooleed dhaqamadii iyo fikradihii ka dhex jiray dhaqamadaas iyo fikradahaasi gaar ahaan qisadu waxay soo muujinaysaa kuwoodii markaa dhaliisha dib ku hayay oo bulshada in lagu baraarujiyo ay ahayd waxaad arkaysaa marka bulsho dhaqamo isdiidan oo kala duwan fikrado la rafanaya dhaqamadaas ay ku dhex jiraan oo mararka qaarkood ay ku qabanayso waxan ma meelaha laga toosiyo marka qisada Maanafay waa qisadaas 40 jirsatay macallin